ilma adeerayaalow waxaa weeyaan muuqaalkan yare kooban waxaan u sameynayaa hadduu ilaah ilaaho waxaan rabaa in mataqaanaa bulshada aan la wadaago incase facebooka haddii ay naqato in lagugu dhago wax lacaga ama adiska xayisiinta ay kugu adkaato inaad saartid waxaad sameyn kartaa ugu fudud inaad tirto filimada muuqaalada ku jira inaad tirtid. Marka qaabkan hadda ujeedaan waa qaabka ugu fudud muuqaalada loo tiri karo. Waxaan rajeynayaa hadduu ilaahay yiraaho in maaragtay aad wax ka faa'iidi doontaan qaabka loo tiro muuqaalada bacdana facebook uu ku diido inaad ka qayb gasho xayisiinad iska tuur ama biisadii ku dheganta annaga iska hadii ku dheganayna iska xagga raaxa tuurinkaas tuurin xagga raaxa. Marka adeerayaalow hadee kilibkan yar waxaa ugu talagalay inaa idinku tuso inaad ku aragtaan qaabka loo tiri karo muuqaalada facebook pagekaaga ku jiro sababay in maxaan ku dhahay inaad ma aragtay xayisiinta ka qayb qaadan weyso. Marka waxaan rajeynaa wixii maanta ka dambeeya inaad fahanteen qaabka loo tiro muuqaalada ku jira pagekaada adiga oo insha allah ka tusaale qaadanaya kilibkan. Haddii kilibyada ama muuqaalada pagekaaga ku jira ay fara badan yihiin una baahan yihiin maaragtay waqti adiguna aadan waqti u haynin una baahan tahay in lagu maaragtay kalingareeyo ama laga masaxo laga tirtiro videoyaasha ku jiro sidoo kale toolane aad u baahan tahay in pagekaada maaragtay la ogoleysiiyo facebook inuu aqbalo inaad xayisiin ku xirato. Waxaad igala soo xiriiri doontaa janalka youtube-ka ee muuqaalkan ku jiro Fambalis production la yiraaho kadib wixii maaragtay budget ugu talagashay in maaragtay lagu shaqeeyo maaragtay aad sheegaysaa adiguna shaqada maaragtay markaas aad u baahan tahay ayaa lagu qabanayaa. pagekaadana waxaa la saarayaa hadduu ilaahay yiraaho xayisiinta. Tani waa qaybtii koowaad ma aragtay haddii pagekaaga ama step one haddii pagekaaga uu la kulmo dhibaato xagga maaragtay facebook oo inuu facebook diido inaad pagekaaga xayisiin ku xiratid. Marka tani waa meesha koowaad laakiin waxaa jira 4 tallaabo ama 4 step baa jiro oo stepkan hadda aad daawanaysaan uu kow ka yahay iyo 3 step oo kale oo markaad mataqaanaa nadiifisa pagekaaga la sameynayo. Kadibna waxaa xigaya hadduu ilaahay yiraaho in pagekaaga uu maaragtay ogolaado in xayisiin la saaro. Marka haddaad u baahan tahay insha allah wixii xayisiin aad u baahanta pagekaaga in lagugu xiro laakiin cillad ay kusoo food saartay taasoo ku saamixi weysay in maaragtay aad qayb ka noqoto xayisiinada ama ganacsiga facebook ka socdo waxaan maaragtay diyaar lanahay inaan kaa caawiyo. Marka insha allah ila soo xiriir adigoo comment igu reebayo mataqaanaa muuqaalkan
hadda aan anigu example ahaanta usoo dhigay channelkan Fanbalis Production